السلام عليكم واد ما سنتي دمانتين وانيga maxamed colaada iyo aniga siraaji aadan xasan iyo gabtiid khaliif oo aareerahiga jooga maanta waxaan rabnaa oo isugu nimidnay dhamaantayo inkastoo qaarkii markii ugu horeysay face to face ku aragnay tahay inkastoo maaragtay dad ama urur ama hadaf ama ujeedo siyaasadeed oo gaar ah isu keentay aan ka ahayn danaha guud ee Soomaalinimada leh ee xorriyadda leh ee dimuqraadiyadda leh ee madax banaanida fikirka iyo hadalka leh ee leh maaragtay in dawlad wanaaga iyo maamulka suuban iyo maaragtay kolba xaaladii marxaladda joogtay bulshada sidii wax looga qaban lahaa dad fikrada iyo araada guud ka midaysan laakiin maanta ay daruuri noqotay inaan intaan isballansoon isu kulano inaan dadka iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan aan ka siino wax yar briefing ama maaragtay fahansiina xaaladda maaragtay cakiran ee siyaasadeed deegaanka ku jiro xaaladda maaragtay si liidanaysa xorriyadda qowlka iyo xorriyadda fikirka iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee qofka xaaladda guud ee maaragtay masiibooyinkan pandemic ee COVID-19 ama coronavirus-ka dawladeenu diyaar garowga iyo wixii sidii la rabay inay uga jawaabaan iyo xaaladda maaragtay isbihiminta ilowsiinta ku jiraan iyo wixii kale daruuri ee waliba shakhsiyan saddexdeedanba saddex qof oo dhib ka soo gaaray baan ahayn muddooyinkii ugu dambeysay siraaji aadan oo kalena wuxuu ahaa dad in muddo hadda ka horba nidaamkii hore cabdiiliina uu dulmi badan iyo dhibaato badan iyo baaba badan maaragtay shakhsiyan iyo isaga iyo qoyskiisa uu geystay maantana walaacan qabnaa tahay in nidaamkii hore oo kale inuu soo noqdo xaaladii oo kale inay soo noqoto in waqtigeena dadku hadli karin si xor u fikri karin si xor u dhaqdhaqaaq karin si xor maaragtay aaraadooda siyaasadooda inuu soo gudbin karin inay daruuri noqoto inaan markaa intaan hor nimaadno shacabka Soomaaliyeed uu nin walba wixii shakhsiyan iyo xaaladda uu soo maray iyo waxa uu dareemayo iyo waxa uu arko inay saadaashu ama jihadan u soconnaa ay tahay inay daruuri muqaddas oo mar ka muwaadin ahaan iyo ka dadkii dhibanayaasha dhibkani soo gaaray ka ahaanba in aan dadka intaan turxaan tirno aan fahansiino inay waajibna saaran tahay baan dareenay tiiman saddexdeedanba hal goob ay isugu nimid imikana waxaan jeclaan lahaa siraaji iyo gabtiid baan yaan uga bixi doonaa fagaara siraaji aadan xasan wixii maaragtay arrimaha ku saabsan isaguna wixii faahfaahin naga siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn aad baad mahadsantiin kulli barnaamijka maanta waxaan doonaynaa oo isugu nimid in xaaladda deegaanka aan kaga hadalno aad buu mahadsan yahay maxamed colaad yaa inoo soo yaa xalay fikirkan ila soo xiriiray runtii waxaan isugu nimid waxaan maxamed colaad waan sii naqaanay gaftiidna kulanahan haddaba isugu ka horeysa marka waxaan isugu nimid waxay ahayd hadda ka horna dhibaato jirtay haddana dhibaato jirta marka dhibaatada hadda jirta maxamed colaad waa la xidhay gaftiid waa la xidhay ani waa la soo weeraro waan ka badbaaday kolka in maxamed colaad wuxuu ka fikiray ahayd in xaaladii hore mid lamid ay imanayso marka inaan bulshada la wadaagno fikir ahaan walaaca jira iyo sidii looga badbaadi lahaa marka runtii aad buu mahadsan yahay marka haddii aan ku soo noqdo barnaamijka xorriyatul qowlku maanta dee xaaladda deegaanka meeshu maray waad ogtihiin qofna loogama sheekaynayo nidaamkii aan ka dagaalamayno oo kale nidaam lamida unbaa bilaabanaya haddii nidaamkaasi inta uu bilowga yahay aan lagu hortagin oo meeshiisa aan lagu qabanin waxay noqonaysaa hadhow wax la qomameeyo maxaan sidaa u samayn weynay dadkeenuna xilliga wax ku habboon yahay tallaabo kama qaadaan qomamana ma daayaan marka inta waxaan uu urdunka yahay mar haddii aan aragnay oon salkii soo wada taabanay gaar ahaan anigu nidaamkan dee salkan soo taabtay maxamed colaadna dee ama kaariguba ka ahaa ugu dhadhow meesha wuu soo taabtay salka kadib shaqadiisii wuxuu ka doorbiday iyo nidaamkii socday dee markuu arkay in wixii meel khaldan loo socdo in dadka hadda dee maxamed colaad waa nin magac leh dad baa daba socon kara systemku ka tirsan yahay oo fortasaad maxamed colaadba wuu ka tirsan yahay u daba socon kara marka waa laga maarmaan intuu gamcaha taagay inuu yidhaahdo ka jooga sida traafiga uu yidhaahdo stop sida darteed maanta xaaladda deegaanku ku sugan yahay xorriyatul qowlka dhinaca mataqaana adeeg bixinta hadda kale arrinta maanta soo korodhay coronaviruska adduunka maanta mas'uul walba ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo wuxuu ku mashquulsan yahay samata bixinta dadkiisa see loo noolaadaa nolosha asaasiga see loo helaa
biyihii iyo cuntadii iyo daawada saa loo helaa ra-iisul wasaarihii waddanku wuxuu ku mashquulsan yahay raashin qaybin iyo miisaaniyaddii waddanka dhanba in raashin loo bedelo waayo dadkeena weliba gaar ahaan soomaalida dhib gooni abaa jiro arrintaa aan jeclahay inaan yar faahfaahiyo inaku dadkeenu 100% ama 80% waxay ku tiirsanayeen lacag dibadda laga soo diro soomaalida haddaad aragto labadii qoys ee meel wada degan mid dibaddu ku tiirsanaa dadkii ay ku tiirsanayeen noocaasa maanta waa 3 arrimood midun nin dhintay iyo nin xanuunsanayo isbitaalka yaala iyo mid guri ku qufurona daaqada kala soo jeeda halka waxa dareemaysaa marka dhaqaale ahaan burburka inagu soo socda nidaamkii dawliga ah waxaan ku hortagi lahaana waa adiga arkay baadhi ay ku jiraan state of emergency baa la saxiiyay waxa la yiraahdaa 4 qof wax ka badan la suuma iman karo maantana waad aragtaa miisaaniyada ku baxaysa waad aragtaan marka dhinacaana dambi baa laga gelayaa laba dambi baa la gelayaa mar state of emergency baa lagu xadgudbay madna dadkii dadweynaha baa khatar ku sugan nidaamkii u fikir lahaana legality waa isaga waad aragtay hay'adihii sharciga baarlamaankii intaasoo jeer bay codsadeen shir inay qabsadaan way qabsan kari waayeen baarlamaankii baa la caayaya baarlamaankii baa la dacaydeynaya nidaamkii dawliga ah sida foodada looga dhigay waad aragtaan marka xorriyatul qowlku maanta meeshuu marayo wuxuu marayaa xaalad aad iyo aad u liidata oo aan loo dulqaadan karin waana taa mid aan isugu nimid sidaa darteed inkastoo aynu ku habboonayn waqti siyaasad iyo arrimo laga hadlo laakiin haddana gurigaagu oo gubanaya dab kalena uu kugu soo socdo labada dab midkeed u baahanta inaad ka badbaado kolka hore dee kanaad dhex taagan tahay inaad biyo iskaga shubto weeyaan kaa inagu soo socdana inaan ka diyaar garowno marka gurigeennii baa gubanaya maanta waxa gubayana waa mas-uulkii ugu sarreeyay waddanka marka xaqiiqda laga hadlo mas-uulkii ugu sarreeyay baa wax kasta laaqaya dadka in la isku diraa la rabaa colaad baa la rabaa in la horiyo khatarta kale aniga ii muuqata waxaa soo socda silsilado kuwii gubo oo kale ah sida qabiilada juhalada la isugu diri jiray oo kala socota marka khataro badan baan kulaalaynaa khatarahaas maadaama ay jiraan ayaan waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed deegaanka ku nool in aan la qaybsano waxa anigu aan isugu nimidna maxamed colaad saaxiibkay gaftiina waa dulmigii hadda maadaama lagu bartay aniga waxaan ku bartoon xidhaygii marka inaan labada nin maadaama la soo xidhay aniguna aan ka badbaaday xaaladna jamcisabay noqoto isu kaya keentay marka inaan dadka la wadaagno jaalbo ka soo baxay hadda bisla meesha ku jiro haduu gaftid kaaga sheekeeyay ay baadinahay marka xaaladaha noocaasa waxa loo baahan yahay in dadka la qaybsado dadka Soomaalidu inay isku tashadaan baarlamaankii baa jira hay'adihii sharciga jira maanta sharcigu waa la jabiyay state of emergency u gooniya deegaankan maanta waa lagu soo rogi karaa waayo xilligii hore oo lafba dagaalami jirtay sharciga dan lagama lahayn maanta laakiin sharcigi baa lagu xadgudbay dadkii waa la iska xirayaa adeeg lama bixinayo xanuunkii coronavirus kaliyeeta ayaa inagu filan waad aragtaan waxa lagu mashquulsan yahay dadkii si isugu keenayo haddana waxay ka yimaadeen state of emergency meesha lagu amnixiyay waxa weeye marka waa waxyaabaha dambiga waa dambi dambiga laga galay mataqaana aadminimada virus intaasoo dhan hal mar fidi kara oo baabuurta ku dhagaya oo viruskan maantu inta badan hawada kuleelka ma dhex socon karo laakiin waxa ku dhagayaa baabuurta ugu badan waxa baabuur la istabageliyo aragtay marka inay dadkeena maxabada qoodanayaan iyo rasaasta hadaba waqtigan aan ku jirno inaga fiqirin waxba haysan miisaanin inta la meelaga bixi kartaa taalifteedu waxay soo hosgalaysaa xuquuqdii aadanaha soo hosgalaysaa marka crisis-ka noocaasa ayaa keenay inaan soo nimaadno waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay kale in isaguna uu ka yiraahdo hadalada ku habboon marka koowaad waxaan salaamayaa una mahad celinayaa saaxiibadeyda qaaliga ah Maxamed Colaad iyo mudane Siraaje oo ay tahay markii koowaad oo si face to face aan soo aragno sida ay saaxiibaday ka soo dhawaajiyeen maanta waxa halkan isugu kaaga keentay khataro midba muddo kale ka halis badan tahay ummadeena soo wajahaya marka arintaas si aan ooga hadalno anagu saddexdeenan ururka ma wada tirsanin sidoo saaxiibkay ka dhawaajiyay Maxamed Colaad wax dan ah ama interest gooni ah oo saddexdeen isugu kaaga keenayna midna ma jiro dadka Soomaalida ah ee deegaankan yani muddo badan baa la soo dhibaateynayay oo culays badan baa soo saarnaa marka in haddana culays kale oo soo socda oo yani saameyntiisa yani saadaasha yani wax iman kara la garanayo waxa noo muuqda khatar aad u fara badan oo ay ka tahay in 2 sano oo laga reereeyay xogaa in maaragtay wadadii shalay oo maaragtay cabdi ilay wadanka ku dhaqay isla wadadii lagu maaragtay lagu noqday
tan waxay kaga duwan tahay dambiga qofka muwaadinka waxaa laga soo download garanaya Facebook yani qofkii waxaa loo sameynaya waxaan jirin qofka muwaadinka marka la xiro xaq u leh in waxa lagu haysto waxa loo xiray eediisa inay u dhaxayso booliiska xeerlaalinta iyo maxkamadda iyo qofkan muwaadinka isagu ama isdifaacaya ama maaragtay isagu wixii iska hadlaya hadda waxaa taas dheer qofkii wixiisii dhanaa waxay u soo guureen Facebook yani garsoorkiin baan hadda dhihi karin Facebook imaadeen taas lafteedu waa xadgudub tan kale xorriyatul qowlka yani qof kasta oo muwaadin ah wuxuu leeyahay xuquuq dastuuriya inuu fikirkiisa cabiri karo sida ay la tahay qaadan karo aragtida la noqota isaga ama uu ku qanco iyadoo aan laguna colaadin karin lagu faquuqi karin lagu fogeyn karin tiina way soo xidhantay meeshay ka baxday maamulka inoo dhisan hadda dulqaadkii baa ka dhammaadaan dhihi karnaa marka si aynan tii u dhicin Soomaalidu waxay dhahdaa daadka haddii aan marka hore la iska moosin ama roobka daruurta marka hore aan iska celin hadduu biyaha soo galo xakama qaban kartid si khataraha inagu soo wajahan iyo cadaadiska iyo caburiska halkiisi ka bilowday looga hortago waxaa muhiim dadku inay fahmaan awoodaha ay leeyihiin marka hore maxaad adigu xaq u leedahay maxaadan xaq u lahayn maamulka maxaa laga rabaa dadka maamulku maxay sameynayaan maxaa xadgudub bini aadamtinimada maxaa laga geliyaa dambiga laga geliyaa maxay tahay qof muwaadin ah oo xiran oo lagula dhaqmayo yani shuruuc ka gooniya maxaabiista ula xiran kulama aad u xiran tahay Mustafa waxaa ku saaran yani waxyaabo gooniya kow wax qaraabi kuma soo booqan karto waxa weeye hadda xanuusta dhakhtar ma lagu geenayo 24 saac waxa weeye qoful baa kugu xiran lagulama hadli karo marka waa khatar kale weeye يعني شلي عبدي وحدت كو ليجا دتكو حلال شني نبديد وي عرفت حمو تيبيكال ما انت وحلال لي هي كعين شعب wax kasta oo maamulku ka xanaaqo hal dhig waxan waa kicin shacab inuu waxa loo adeegsanaya waxa sharciga ay baarlamaanka soo saaray tiiba waxa looga faa'iideysanaya qofkii isaga ka fikir duwan taasna waa khatar kale dulmiyada la inaga galayo iyo maaragtay iyadoo xaaladdu ay adag tahay oo in la leeyahay dadka saddex qof ka badan isma iman karto baa wax ka badan konton gaar la isdaba galiyay waxa weeye oo magaalo dhan la isku soo bixinaya magaalo dhan waa khatar weeye yani iyo dulmi dadka laga galayo marka laga soo tago in kharash badan ku baxayo marka dadka waxaan u soo jeedinaynaa wax garadka ah gaar ahaan dadkii shalay dhibaatadu ama ay ku dhacday ama ka soo dagaalamay qofba siba u saameysay waxa ina saaran mas'uuliyad gaar ah in laga hortago يعني عبورنت iyo cadaadiska soo socda waa in la dhaho qofku uu dhaho anigu waan hadli karaa ma jiro wax ii diidi kara hadda gacantaydan labadeeda gacmood tan intaan doonaan firin karaa laakiin tan intaan rama fikro because maxamed colaad baan dhaha ka gelinaya inuu waa dadku ay fahmaan waxa ay xaq u leeyihiin iyo maxaan xaq u lahayn maamulku maaha inay ay dadka uga faa'iideystaan yani dhaawacii gaaray 27 sano u dambeysay inkastoo mar walba gumaysi aan ku jirnay dhaawac weyn baa soo gaaray gaar ahaan 10 sano u dambeysay marka jahliga jira iyo cabsida jirta iyo dhaawacii shalay dadka gaaray baa waxa looga faa'iideysanayaa inuusan qofkii in la cabsi geliyo adiga ma hadli kartid wax aniga iga duwan fikirka ma qaadan kartid marka khatartaas ay nagu soo wajahan qof kastana mas'uuliyad baa ka saaran dulmiga aniga la ii geysanayo ama maxamed colaad loo geysanayo ama siraajo loo geysanayo ma aha kaliya inaan uga dagaalamo maxamed colaad aan saaxiibanahay waxaan ku dhacay laakiin as muwaadin ahaan محمد علاad muxuu xaq u leeyahay waxa laga yaabaa inaan isku dhaxsanay maxamed colaad fikir kala duwan mar hore aan soo doodnay wax naga dhaxayn karaan laakiin xuquuqda uu leeyahay ee muwaadinimo mar walba inaan difaaco iyo wax anaga naga dhaxay waxba naga dhaxaya deegaanka naga dhaxaya Soomaalida naga dhaxaysa diinta naga dhaxaysa dhaqanka luqadda inaan ku xeeriyo haddii aan xataa isku dhaxsanay oo shalay aan soo kala horjeednay marka arintaas inaan maaragtay aan ka hortagno oo arinta maaragtay laga hortago wacyiga la sii wado gaar ahaan anigu iyo inta ila fikirka aba yani arma la idin xiraa ama la idin caburiya ama uma joojinayno because iyadoo sidan ay ka khatar badan tahay oo la istilayaan soo dhiiranay marka muxuu ahaa waxa in saaran mas'uuliyad weyn marka hal dadaalo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan sii wadi doonaa barnaamijyadan way sii socon doonaa insha Allah hadii aad iyo aad baad mahadsantihiin siraaj aadan xasan iyo gabdhi khaliif aad buu mahadsanyiin ujeedada runtii kulankayna kaanbu in xaaladan xasaasiga ee deegaanka maanta ku jiro ka siyaasad ahaan ka amni ahaan iyo ka masiibooyin ahaan iyo waliba dhibaatooyinka laxaad kale
muddooyinkii ugu dambeysay soo gaadhay maaragtay xuquuqda xorriyatul qowlka ee dastuuriga ee haddana maaragtay haybadda rabbaaniga ah maanta dadka waxay odhanayaan Mustafa xorriyatul qowlkiibuu yuu fasaxay aad baan uga qoslay markaan baraha bulshada iyo dadka ku arko nina ma fasaxi karo xorriyatul qowl nina ma diidi karo inuu ahayn qofku inuu intuu dulmi u bareero ugu talagalo inuu macanga kelidii taliya oo sharciga iyo qaanuunka caalamiga iyo maaragtay xuquuqaha asaasiga ilaahay bini aadamka siiyay inuu danaynaynin mooyaane qof fasaxi kara iyo qof diidi kara ma jiro laakiin qofku wuxuu sameyn karaa nidaam ama maamul ama shakhsi maaragtay nidaamka iyo maamulka hogaamiyay wuxuu sameyn karaa ama uu xurmeyn karaa xuquuqaha iyo xorriyadaha iyo qaanuunada caalamiga iyo kuwa waliba dastuuriga iyo kuwa deegaanba ama wuxuu ignore garan karaa intuu iska isnasakhu iska indhatiro ayuu diidi karaa inuu xurmeeyo maanta dadkii ugu horeeyay la xidhay aniga gaftiid ma ahayn siraaja aadana dayr 9 mitir xaggiisa damba ka dhacay waliba maaragtay nin shakhsi oo civiliana oo laba gaari oo qabaal oo hubaysan oo buuxa uu wato ilaahay cidi caaradid kaga badbaadiyay ma ahayn hadda koor guulada cali baa la xidhay khadar aadan baa la xidhay nin ishaar la yiraahdo reeqor ayaa la xidhay waxa kale oo la xidhay maxaa la yiraahdaa bisla xidhan Cabdiqaadir bisle labadeedana shalay iyo daraadun dhowr maalmood kala horreeyso ka soo baxnay dadkaasina hal mid un bay xidhiga dadkaasi wadaaga dhammaantood waxa weeyaan eedayn kicin shacab ay ahayd dhammaantood inta maxkamad la geeyay dambi laguma soo oogin cadayna lama keenin lamana xukumin maxkamadda maalinta ugu horeysay xabsi xalaaleynta waxaan ahayn midna laguma celin dadka qaar baa koodani markaan waxyaalahan la yaabee kulankan baahida keentay dadka jaahil tirida u baahan waxay tahay waxa la odhanay nin dambi looga shikiyo soo inta eedaysana la yiraahdo lama xiri karo maxkamad la geyn karo waa hawaarun laakiin waa goorma waa goorta dambi baarista iyo xeeraalantii inta kiis ku fureen dambigiisa muddo baarayeen markay cadayn ama wax lama dhaafaana oo inta maxkamad inta la horgeeyo qofku waa lagu xukumi karaa la yiraahdo marka ay gaaraan meesha oo yiraahdaan kiiskana cadayn ku filan baan haynaa maxkamad waan horgeyn karnaa maxkamadii markay cadaymahan iyo eedeymahan dhageysatana way xukumi kartaa qofkan marka la yiraahdo baa qofka la xiri karaa laakiin qof inta wadada laga soo qabto sidii neef xoolaa ama 24 saac ku jira sideeda ama 40 cisho ku jira sida gifti ama sida bisla inta uu ku jiraan la garanaynin inta maalinta ugu horeysa maxkamad la geeyo la yiraahdo hebelka in shacabaan ku yaayuu nooga eedeysan yahay maxkamadda ha noo ogolaatay inaan baaritaan ku sameeyno inta la yiraahdo oo qolkii madoobaaya laga saaro inta lagu soo celiyo lagu ilaawo oo goordhow ergo iyo waawaan iyo qaylo shacab iyo mudaharaad iyo buuq in lagu soo daayo ma aniga maalintii halkan iyo xidhay gurigeyga igu yimaadeen ninka komishineerka deegaanka maanta sheeganaya ayaan ku leeyay waarankii maxaad igu xidhay waan ku raacaya waan ogolahay sharciga waan u hoggaansamaya anigu sharciga kama sareeyo hadii madaxweyne ama dawlad ama mas'uul ama adiga komishineerkii ayaan sharciga u hoggaansamaynin oo ayaan sharciga ilaalintiisa garaneyn anigu sharciga waan u hoggaansamayay fadlan waaranisi way noqon weyne gurigeyga ha soo gelin search warrant buu baahan arrest warrant iyo search warrant way kala duwan hadan waliba arrest warrant waa qof wadada socdo laga qabto hadii laakiin gurigaaga la imanayo oo taleefankaaga la qaadanayo oo tani guriga chiefkaaga inta la baaro gurigaaga cidda joogtay waxa yaala la ogaanayo search warrant buu baahan hebel soo qabta in inta la yiraahdo uu nin komishineer oo socda oo hay'adii sharci ilaalinta qofkii ugu sareeyay sargaalkii sharci ugu sareeyay uu yiraahdo anaga waana la amray adeer ee hana dhibinana raac afma waxaas dawladnimo ma hanaan sharci ma hanaan qaanuun ma sareynta sharciga iyo ilaalinta sharciga muwaadinkana waa u taala dawladana waa u taala haddii tii xukuumadda haydi sharciga ilaalinayn xuquuqda bini'aadamka ilaalinayn ninka shacabka ee muwaadinka uma taalada inuu sharci ilaaliyo marka that's a fact dawladdu markay qalalaasa bilowday inay sharciga jebisa bilowdo muwaadinka iyo shacabkuna cadaadiska iyo cafuriska ka dhashay awgeed sharciga u jebin doonaan waa trend la daraasadeeyo caalamka oo dhan ka dhacday Ethiopia ugu dambeysay ka dhacday 27 sano dadka afka laga fadhiyay markii dambe waxay noqotay sidii disti karaya qaraxday xaalad siyaasadeed xasaasiyan ku jirna hebel baa hadalay naga qabta sidii neef xoolaa inta la afduubo qol madow lagu rido goodho dood iyo qayle iyo muran iyo sawaxan uu ka dambeeyo qofka sidaas sameynayana ma aha qof jaahila oo qaanuunada caalamiga iyo ka sharciga dastuuriga ee u yaala wadankan deegaan qof badan garanay ma dhamaantood way wada garanayaan qaarkoodna
waxayba usoo shaqeeyeen hay-ada caalamiya iyo xadaarado kaloo ummadeed bay arkeen kii hore shalay dadka ku duldhaantayn jiray meydkoodii cabdiile lahaa ugu yaraan waa jaahil baa lalahaa tiisoo un ilaasanayo oo ma aragtay waalan oo majnuun ah kuwa maanta jooga maxaan odhanaynaa waaye maxaan ugu cudurdaaraynaa aan ka ahayn waa badheedh iyo ku talagal cad oo qofka muwaadinka xuquuqdiisa iyo xorriisa lagu sajin maanta cabdiqaadir bislaa xidhan waxaa lagu eedeeyay afgembi iyo dil iyo khaarajin iyo wax lamid caynkaas anu maalintii isaga iyo bisla maxkamadda maalin baa nala wada geey kiiskiisa marka la dhegeysanay waxaan fursad u helay inaan xaadir ahaado oon joogo abaabul shacab bay yidhaahdeen shacabka waxaa loo sheegay iyo miidiyaha iyo suuqa waxaa la geliyey cabdiqaadir bisle wuxuu jiray afgembi khaarajino kii asaamino sige ayay isagii cabdicaadil wada wadeen maxkamadda markii la geeyeyna waxaa la yidhi kiciniya abaabul shacab waa maxay kiciniya abaabul shacab buu weydiiyey garsoorkii waan caddayn doonaaye horta dee hana loo hayo ujeedkuna waxaa weeye iga qora maanta taariikhdan write down this bislo waa la soo dayn doonaa isagoo dembi lagu eedayn baa la soo dayn doonaa isagoo maxkamad la geyn baa la soo dayn doonaa isagoo wax cadayna oo dembi oo lagu cadeeyaan lahayn baa la soo dayn doonaa laakiin su'aashu waxa weeye intee in leeg buu waxaasi socon karaa intee in leeg buu noqon karaa qof walba oo fikirkiisa iyo aragtidiisa cabira in inta baradiisa iyo gurigiisa inta loogu yimaado laga afduubo qoyskiisa iyo dadkiisa qofkani caruur buu leeyahay xaas buu leeyahay walad buu leeyahay waalid buu leeyahay dad jecel oo danaynayuu leeyahay sida maanta nin walba kursiga ku fadhiyo una jeclayn in god madow isagana lagu rido ayuu nin walba dad danaynaya oo ka dambeeya leeyahay ninna meel dhagaxa oo banaana lagama helay qof walba wuxuu leeyahay dareen buu leeyahay xaq buu leeyahay xuquuq buu leeyahay awoodo maaragtay xuquuqo hiba ah oo ilaahay siiyey buu leeyahay ka shacabaan markaa waxaa la gudboon uma baahna maanta marka anigay soo gaadho inaan qayliyo uma baahna dhibaatada markay siraajo soo gaadho waa inaan qayli karo marka siraajo ku ka fog ay soo gaadho waa inaan qayli karo nin baa laga hayaa farigii second world war iyo naziga iyo hitler ayaa wuxuu mar waxa u yimaadeen buuray soo beegsadeen dadka iga diinta duwan maadaama anigu ka diin duwanayn dhib iguma hayn buuri waxay soo beegsadeen buuray raadsadeen dadka iga jinsiyad duwan maadaama anigu ka jinsiyad duwanayn dhib uma arag buuri waxay beegsadeen buuri dadka aniga iga fikirka dadka iyaga ka fikirka duwan dhib uma arag buuri waayo anigu iyaga iyo naazigii iyo hanaankii waqtigaa jiray kamaan fikir duwanayn waxay beegsadeen buuri dad aniga kalarkooda iyo diirkooda iga duwan yahay dhib uma arag buuri waayo anigu kama duwanay laakiin ugu dambayntii waxay yimaadeen anigay isoo beegsadeen buuri markay dhibaatadu qof walba intay daadku guriga ugu soo galaya in la suga maaha ninka muwaadinka ha kaa aragti duwanaado urur kaa duwan ha ahaado fikirro iyo mabaadi kaa duwan ha aaminsanaado waxa uu dhaqdhaqaaqiyo sax iyo khalad ha ahaato ilaa inta qofkaasi wax sharci darraa uuna samaynin dowladduna wax sharci darraa inuu sameeyey ayna ku caddayn karin muwaadiniinta iyo deegaanka iyo shacabka oo dhan waxaa looga baahan yahay inay dadku intay solidarity muujiyaan inay yidhahdaan enough is enough goodhow inta jeelogaadeyn kale la samayn ee lafa kale dhulka laga soo faqi ee meydad kale lagu duldhaantayna inaan sugno ma aha inaan nidhaahnana maaha suuragal ma aha wixii oo kale in lagu noqo waayo nin intuu maanta soo fadhiisto bulsho horteeda damaanad qaadi kara ma jiro inaan tii hore lagu noqonin no one can guarantee that hal bin qof ah oo damaanad dadkan siin karo odhan kara cabdi ilay iyo wixii ka horreeyey iyo 27 sano xasuuqii iyo dhibaatadii dadka haysatay ma soo noqon karo cid damaanad qaadi karta ma jirto